السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولالكين عبد الله محمد بيرولة كسو دوادا جانلك بيرولة وحان إذن كعود سنة إنا جانلك بيرولة سارتان سبسكرايب ساي إنو نقطة ديريكالين وأن ولي بهرو ووصي ونمو قالدينا إن شاء الله وحان إذن سو قدبينيا فإذا أي ليلها آية الكرسية عدبه هدي أتكيشي موقالك لايك سار دابشو وعن قصدان وحا أي كدعضي يونايتد ستيت waxayna ahayd gabar Maleesiyaan ah waxay ahayd gabar edeb badan oo is asturta waxay u shaqayn jirtay qolo Ameerikaan ah habeenkii ayay ka soo bixi jirtay shaqada habeenada kamid ah ayay shaqadii ku yaraadahday waxay ahayd xilli dambe jidka ay mareysayna wuxuu ahaa cidlo markaasay cabsi dareentay markii ay wax yar socotay ayay waxa ay aragtay nin cadaan ah oo geed hoostii fadhiya markaasay aad u cabsatay balse waxa ay qalbigeeda ku tiri oo muxuu iga qaadi karaa haddaan Allah tala saarto oo ka magan galo misna waxay akhrisatay aayatul kursi ilaa ay gurigeeda ka gaaraysay kadib nabad ayay gurigeedii ku tagtay oo alle magangeliyo siiyay subaxdii dambe ayaa ayadoo joornaal akhrisanaysa ayaa waxa ay aragtay jidkii ay habeenka mareysay oo gabar lagu kufsaday wuxuuna ahaa isla ninkii ay meesha ku martay qofka waxa uu kufsaday 10 daqiiqo ka hor markay meesha martay waxay aaday saldhigga booliska oo waxa ay ku marqaati furtay ninkii waxaana la ogaaday kufsadaha dhabta ah marka ayay ka codsatay booliska in ninka loo soo bixiyo si ay u yara su'aasho waana laga ogolaaday markii la soo bixiyay ninkii ayay weydiisay sababta uu u dhaafay ayadoo kaligeed ah laakiin ninkii waxa uu ugu jawaabay maya oo kaligaada maadan ahayn waayo waxa labada dhinac ka socday laba nin oo xoog badan waayo haddaad kaliga ahaan lahayd igama aadan baxsateen markaasay naxday oo u mahadnaqday Allah oo ogaatay inuu Allah ku magan galiyay aayatul kursiga